شفاء لروحي وحبل المتين. bulshoy waxaa la idinku bishaaraynayaa xarunta الهلال cudurrada laga daaweynayo waxaa ka mid ah dhiig furanka, waalida, caado wareerka, umusibyaanka, gabdhaha wejiga ka halaabay, baabasiirka, dhagaxa kiliyaha gala, xoojinta raganimada, isha, dhiigkarka, sokorta, naxdinta, kili xanuunka, waswaaska, madax xanuunka, jinka, dhalmala'aanta dhasha Allah bixiye, toobinta iyo kuwo kale oo fara badan. xaruntuna waxay idin keentay daawooyinka baabasiirka, gaaska, daawada kaliyaha nadiifisa, daawada infekshanka, tan calool bixinta, daawada samboorka, tan sokorta, caado wareerka, umusibyaanka iyo dabaysha, neerfaha, alerjiga, dhiigkarka iyo daawada xoojinta raganimada, rumatiisanka, daawada caloosha lagu yareeyo iyo murqadhisida, daawada yiridka, daawada burseelka iyo guryaanka. waxaad sidoo kale ka helaysaan biyaha samsamka iyo tinka iyo talbiinada. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. walaalaha muslimiinta meel kastoo dunida aad ka joogtaanba, waa mar kale iyo barnaamijkii aanu ku fasiri jirnay riyooyinka. haddaba maanta waxaan idin hayaanu idiin soo gudbinayaa hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka raali noqdo. haweeneyda qabta umusibyaanta maxay ku riyootaa inta badan? riyada kusoo noqnoqoto waa maxay? waxaan jeclahay inaan idinla wadaago information aada muhiim u ah oo qofka haweeneydu hadday isku aragto ay ogaanayso in ay qabto umusibyaan, loona baahan yahay inay si dhaqsaa isaga daaweyso. waxaan idiin hayaa 5 qodob oo muhiim ah. 5tan qodob balagta u raarici, tartiib dhageyso. cudur aadan qabin ha isku ridid, laakiin ciladahan haddii ay jiraan si dhaqso ah ula soo xiriir xarunta iskagana daawee insha Allah tacaala. haweeneydu haddii ay ku riyooto xilliga ay uurka leedahay ayadoo canugeedii uurka caloosha ay ku siday ayadoo dhashay, isla markaasna laga dafayo oo laga qaadanayo oo laga xoogayo oo ay daba ordayso, haddii ay ku riyooto haweeneydaasi ha ogaato in ay qabto cudurkan umusibyaanta la yiraahdo dabeesha ilmaha soo rida. sidoo kale haddii ay ku riyooto ayadoo caruur badan haysata, habeenkii oo dhan caruur kala maamulaysa, haddii ay ku riyooto ayadoo caruur badan haysata, qaarkood ay naaska nuujinayso, qaarkood ay kala hagayso, haddii ay ku riyooto oo riyadaasi kusoo noqnoqoto, ayaduna waxay ku tusinaysaa in ay qabto cudurkan la yiraahdo umusibyaanta, waa dabeesha, qaaluntana lagu yiraahdo luqadda carabiga. sidoo kale haddii ay haweeneydu ku riyooto ninkeedii oo sameynayo gogol dhaaf ama haween kale la jiifo oo markaas intii haween kale aanan qabin, haddii ay ku riyooto riyadaasi ay kusoo noqnoqotana, waxa weeyaan waxay daliil u tahay oo ay ku tusinaysaa in ay umusibyaan qabto. haweeneyda qabto umusibyaanta waxaa kaloo lagu gartaa xilliga gurigeeda ay jiifto ama zawjkeeda ay la jiifto in ay ku riyooto ayada oo nin kale la jiifto, nacuudu billaahi min dalik. ciladahaasi haddii haweeneydu ay ku aragto dhowr jeer inay kusoo noqnoqonayaan, si dhaqso ah ha iskaga daaweysay, iyaysan isku sii fiirsanin ciladaas. maxaa yeelay waa cilad aada u dhib badan. umusibyaantu way dhib badan tahay, dhibaatooyinka iyo saameynta ay ku yeelato qoysaska dhisanna video buxiga ayaan insha Allah idin soo wadaagi doonaa. mar walba ayada iyo ninkeedii oo isdagaalayo, isku dhacaya, oo dagaalkii mar walba uu joogto noqonayo, hadday ku riyooto isla markaasna uu leeyahay waan ku furay uu leeyahay, hadday ku riyooto riyadaas kusoo noqnoqota, ayaduna waa min calaamaad oo ku tusinaya in haweeneydaasi ay qabto cudurkan umusibyaanta la yiraahdo dabeesha weeyaan. haddaba walaasha muslimadda ahay, ciladahaas iyo cilado kaloo badan haddaad isku aragto oo ku taxalluqo dhanka wareegga hoose ee xanuunka minka ovariga agaarkiisa, haddii aad ku aragto xanuun joogto ah ee mar walba soo noqnoqonayo, ayaduna waxay ku tusinaysaa calaamadaha umusibyaanta. inkastoo aan barnaamijkaani calaamadaha ugu talagelin, laakiin riyooyinka ayaanu xooga ku saaraynaa si aad u fahantid cilada ku haysato. waxaase kuu sheegayaa oo qodobka 5aad kusoo gabagabeynayaa, marnaba ha walwalin walaasha muslimadda ahay, waxaad leedahay Allah
allihii ku abuurtay ee cudurkana abuuray ee keenay soo ma ogid inuu daawadiina kuu keenay cudur kasta oo ilaahay uu soo dejiyey koonkan wuxuu sidoo kale u soo dejiyey daawo lagu daaweeyo marka ha walwalin hana isdhiganin hana inkirin cudurka si dhaqsaana isaga daawee haddii aad ku aragto zawjkaaga dhibaato kale oodan horey u ogeyn oo soo gudboonaatay haddii aad aragtid ama adigu aad cilado isku aragtid riyooyin noocaas oo kale ah oo zawjkaaga ninkaaga uu inkirsan yahay ciladahaasi waxba dhag jalaqa u siinin si toos ah oo la fariiso la xaajo dheh ciladana jirta waa inaynu isdaaweynaa optionkaasi waa kuu furan yahay daawadana raadso lana soo xiriir xarunta lagu daaweeyo cuduradaas oo dhan taleefanadaas meesha ku qoranna soo qor aan hadda idinkaga soo faraya fariinta waxaanu ku daaweynaa cudurrada umusibyanta iyo dhammaan qaybahaas korooda hore ku soo aragteen ayaanu daaweynaa lamaradaas nagala soo xiriiri kartaan anytime waa online baan ku shaqeynaa daawooyinkana online baa lagu soo diraa dadkana online baa lagu daaweeyaa يعني وحويان سيستم أدق باتريسان إن شاء الله تعالى أدبد مهتسنتين وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شفاء لروحي وحبل المتين bulshoy waxaa la idinku bishaaraynayaa xarunta الهلال cudurrada laga daaweynayo waxaa ka mid ah dhiig furanka waalida caado wareerka umusibyaanka gabdhaha wejiga ka halaabay baabasiirka dhagaxa kiliyaha gala xoojinta raganimada isha dhiigkarka sokorta naxdinta kili xanuunka waswaaska madax xanuunka jinka dhalmala'aanta dhasha allah bixiye toobinta iyo kuwo kale oo fara badan xaruntuna waxay idin keentay daawooyinka baabasiirka gaaska daawada kaliyaha nadiifisa daawada infekshinka tan calool bixinta daawada samboorka tan sokorta caado wareerka umusibyaanka iyo dabaysha neerfaha alerjiga dhiigkarka iyo daawada xoojinta raganimada rumatiisanka daawada caloosha lagu yareeyo iyo murqadhisida daawada yiridka daawada burseelka iyo guryaanka waxaad sidoo kale ka helaysaan biyaha samsamka iyo tinka iyo talbiinada